عليكم ورحمة الله وبركاته. horta waxaan u mahadnaqayaa awal biawal madaxweynaha oo codsigii geeleyda aqbalay annaka oo howlaha ka ag dhawaniyo wasiirka beeruuna noogu yeedhay inaan goobjoog ka noqono hawsha wuxuuna uu yahay shaqadayadii oo kale mahadda madaxweynaha leh sidaa sheegteen haddaanu ahaynin xoolaha iyo geela iyo dhaqankii waxtarkooda fahmaya dee ma fududeeyeen weliba inu xeradii geela yimaado iminkana waa u diyaar baan u malaynayaa sidaan sheekada ku maqlay dhowr iyo kontonkii awrayadoo lagu sido madaxweynaha halkan la keenay ma cadaawo ahaa cadaawo koray marka deegaankuna waa isla deegaankii waa mahadalle ilaahay baa laga helaa madaxweynahaagii oo isla markaana geel jiro kula ah xeradii geela kuugu imanaya deegaankaagiiya aanad meella xamarna qabanayn cadanna qabanayno meel ka tigsanayn waa qofkii ugu sarreeyey waddanka iska dhaaf dg iyo agaasime waxeed iyo isuduwo gobol iyo wax lagu meeraysto ayay ahaan jirta awal soo maha nimcooyinka ilaahayna sii ka mid tahay haddaynu garanno intaa waxaan ku daray waxa weeyaan horta waxa ilaahay mahadiya qoladiinan baac mushtariga ah ama lacag u galo ama wax kasta u galo oo fikir fiican baa keenteen fikirkaa keenteen waxa weeye ummaddu hadday ku kalsoonaan weydo waxa ilaahay siiyey oy ka hanqaltaagto oo waxaan waddankeedaba ka bixin ama lagu hayn waxayna dhaamay dadkeennii hore maxay odhan jireen wankaa madax madoobay isku haysataa adduunyadoo dhamme gaalkan cadaynu dhahno iminka iscadaynaynu dhahno ekaadana waxay odhan jireen waasaan cadaale nin bukay ka dhigeen yaa baras buu qabaa waasaan cadaale waa markii qabka lahayd soomaalidu xoolaheennuna ama ilaahayba siduu qur-aankiisa ku sheegay waxa u qaalisan xoolaha geela wa ila libili kayfa khuliqat waa nimcooyinka ilaahayna siiyey buu ka mid yahay wax lagu kala samro oo nin boqollo oo la dilay oo kibir ama adiid lagu dilay lagaga samro geela cascas baa jira marka geela waxaynu haysanay awal deecadii caanaynu haysano jaahiliyaddii wax kale ma jirin dhoofkii baynu barannay inaynu dibadda u iibgeyno oo hilib ahaan ugu iibgeyno maanta haddii aynu isku tashi gallo ama beera ha noqoto ama thara xayawaaniin ha noqoto geel iyo adhi iyo lo'ba wixii aynu haysanno oo aynu kobcinno oo adduunyada kula tartanno waxa weeyaan wax badan baynu kaga kaaftoomaynaa oo shisheeyuu sameeyo dakhli dalkeenna gudihiisii ah oo maxaa la samayn jiray gugii xoolu markay aada u dhalaan geelo waxay samayn jireen dadku caanaha inta dheer ilan kayd geli maayaan way iska daadin jireen waa la daadin jiray berigaa iibkii waxaa waa laga xaragoon jiray caanadiiqii waxbaa la odhan jiro ninka xoolale xoolihiisa iibiya xitaa tuulooyinkaa waxaan garanayaa miyiga iyagoo marka geelu dhalo ay geeljiru iska keenaan caanaha bilaasho haddii shaah la siiyo ama ay shaah ku cabbaan ee oreer ahayd waxaanaynu garanayn qiimaha waxa aynu haysanno marka taana waanu idinku calool adeegsiinaynaa waana idinku hambaryaynaynaa waana idinku garab taagannahay iyadoo madaxweynuhu noogu horeeyo allahuma salli calaa sayidina maxamed waxaynu samaynaynaa waxa weeye ama ha lagu cusbaado ama yaan lagu cusbaana dee nin la tumay tala jirtaa aniya muuminba talaana jirta madaxweynuna annaku meeshana keenay dee goordhow waxaanu la cabanno oo aan kari weynin muuji innakaa layn haystaa ama cagaf aan keenno bal ku jarro ama aan calaf keenno innakaa layna haystaa innakana waxa weeyaan dee wixii aynu u soo guntanay inaynu dalka waxaynu ka tari karra ka tarro waana laba shay oo fiican beertii iyo xoolihii labadaa haddaynu dhulkana u jeesanno qodanno xoolaheennana waxaa ka soo baxaya aynu warshadayno ilaa xad oo marka ugu dambaysa sidii guddoomiyihii geeleydu ka sheekaynayey aynu diro waxaynu noqonaynaa hard currency baynu helaynaa dowladdu iyada ka faa'iidaysa cashuur bay qaadaysaa wixii dhoofa maxaan ku dhahdaayey halkaa anabooraha iyo waxa aanaynu garanayn meel laga soo lisay ama dameera ama meel kale ay dadkeennu ku dhimanayaanna xoolo nadiifa ya marka kolley dee waxaan ballan qaadaynaa haddii aan la yidhaho wixii la qaban karo inaanan waxba hakran haddii ay tahay waxyaabaha ka hadasheen iyo haddii caafimaadka
xoolaha iyo haddii dhiirigelintiina tahay intaba marka waxa kalaan dee bishaare ah wax soo dejiskii iyo xiibiskii kale wuu xumaanayaa laakiin geela tiisu weligeed xumaan mayso caanahaas weligeed xumaan cadkuna xumaan maayo haddii warshad loo helo adduunkaba kan markaan kaga dharagno loo dhoofiyana waa nimco waxyaabaha ummadi ku horumartaa waa waxooda oo ay sidaa u ilaashato dawladna laga baryi maayo wixii dadku lahaa oo la kobcinayo ama la soo saarayo ama aynu isku tashi gelayno inay hormuud ka muuqato inay baal marto sababtoo dan baan ku jirin dagaaladii adduunka nin walba marka xaafadiisii ay noqotay sawaariikhiyo la isku ganay iyo sun yaa dee waa kii cabdikaheer ka warramayay lahaa gaaladii ba xitaa soo qaxday oo qolka warwareegaysa caanaha iyo cadkaas baynu ku baxsannay hawd ninkii wax ku haystay iyo miyi iyo waxaa dee aynu ku dhaqannay ilahayna siiyey ayuunbaa baxsanaya maantana dee dagaalkii saddexaad ama dhib way dhici kartaa adduunka marka ilaahay mahadii weeye arrintaa haddii markii hore business u gasheen imikana muwaadinnimo inaa investmentka gelisaan wixii laydin tari karee dowlad ahaan ama hay-adaha laydinkala qabto ama xukuumaddu waa idinla qabateenna laydin taro ayay noqonaysaa bolisiga xukuumadda haddii alla yidhaah waana taan ugu imi dee waana mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi